waayeelka waxgaradka cuqaasha indheergaradka degmadaasi ceelaf weyn ayaa maanta waxay tacsi tiraanyeel u direen ehelkii qaraabadii iyo qaranka jamhuuriyadda Somaliland ee uu ka baxay allaha u naxariistee marxuum caaqil Ismaaciil Aadan Cabdi Qurux oo ka mid ahaa cuqaasha ka soo jeeda gobolada bariga Somaliland waxayna ka sheekeeyeen sooyaalkii taariikheed ee marxuumka iyaga oo ku sifeeyay isla markaasina carabaabay inuu ahaa samadoon ka shaqeeya nabad jiif caaqil Ismaaciil Aadan Cabdi oo ku geeriyooday hargeysa waxaanu leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun tacsidiisi baan halka diraynaa qaranka Somaliland dhammaan dadweynaha reer Somaliland dhammaan muslimiinta oo dhan ehelkiisii reer Celefeen oo dhan dhammaan waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaa dawladaha waxaan leenahay naxariisto godka hawlo ilaahay jannatu firdawsi geliyo dhammaanba eheladii iyo qaranka Somaliland oo ka geeriyooday sanadkan Allah ka siiyo waa xubin muhiim ah ka baxday guud ahaan dalka isagoo la sheegay dhashay daadiisa ilaa dhowr iyo 40 dhashay inta uu caaqilka ama chiefka ahaana ka shaqeynayay khayrka iyo wanaagga oo lagu yaqaanay ahlul masjid waliba ahaa waxaan ku garanaynaa inuu chiefku ahaa dadkii masaajidada camiri jiray khayrka ka shaqeyn jiray ku suntana waxa kale maanta ay tahay runtii waa maalin jimco habeen jimcona waa dhintay ilaahay kaana waa calaamad xusn khaatima ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay dambigiisa dhaafo ninkaas wuxuu ahaa haliyey ka baxay qaranka Somaliland gaar ahaan degmada Ceelaf Weyn wuxuu ahaa raggii ku tunsanaa waxqabadka degmada Ceelaf Weyn nabadda horumarka iyo guurtinimada wuxuu ahaa adoon wanaagsan buu ahaa dhameeyo wax meelaha la soo yimaado waxaan u rajaynaynaa janno firdawsi ilaahay ka waraabiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaa adoon ahlu cibaada wuxuu ahaa adoon hadda jeer dadka inay walaalnimo iyo dersnimo ku noolaadaan caaganimadiisu waxay mid soo jireen oo ilaa aabihii iyo isaga ay caaqil ahaayeen maanta ayuu geeriyooday isagoo ka shaqeynaya samafalka iyo wanaagga dadkiisa waxaan leenahay godka xubin nooro sawir iyo baan saaba ka siiyo dhammaan bulshada Somaliland gaar ahaan gobolka Sanaag gaar ahaan qoyskii qaraabada iyo ehelku ka baxay sidaas ilmada xorjeedna ugaasha kale ee degmada hadda jeer falalka wanaagsan ka shaqeeya wala dhimanayaa sida caaqilka marxaati waxaan ka furaynaa anagu haddaan ka dambeeyno wixii ay qabateen inay wanaag ka shaqeeyaan bulshada soo jiitaan oo sida caaqilka maalin anagu marxaati furo ina ahayd inay wanaagsan taasi ilaahay janno firdawsi iyo dad badan buu ka tagay ragii dumar buu leeyahay sida daraadeed waxaan leenahay dadkii heeradii ka tagay iyo dhammaan qaranka Somaliland iyo degmada Ceelaf Weyn dadkiisa weerarsan reeyay ka soo anagu kiyaan isku barbaarnay buu ahaa waxaan leenahay mid buu ahaa ku suntay sida loo soo sheegay nabadgelyada iyo weerarta dadka mid buu ahaa aad iyo aad uga baxay Somaliland iyo degmada Ceelaf Weyn kullu nafs daa'iqatul mawt inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun anagu bahu intii degmada Ceelaf Weyn waxaanu tacsi tiraanyeel uga direynaa halkan jiif caaqil Ismaaciil Aadan Cabdi oo habeenkii xalay ahaa ku geeriyooday magaalada Hargeysa waxaan leenahay ilaahay dadkii uu ka tagay dhammaan caaqilku wuxuu ahaa mid ku suntan wada noolaanshaha nabadeynta degmada Ceelaf Weyn ونردي شمبر تلفزيون عالمي Ariel TV galbeedka gobolka Sanaag Ceelaf Weyn